بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال meel kastoo adduunida ka joogtaan ba ku soo dhawaada barnaamijkeena dooda ee telefishinka MMTV oo toddobaadkan aan ku soo qaadan doono afayeenada xisbiyada mucaaradka iyo muxaafidka ee kulmiye iyo wadani oo marti ay noogu kala yihiin Cabdinaasir Buuni oo ah afayeenka xisbiga kulmiye iyo afayeenka xisbiga wadani sidoo kale waxaanu ku soo casuunay مسؤوليinta xisbiga mucaaradka ee u cid doodan inay nagala qayb galaan balse doodaasi markii ay gabagaba ku dhaweyd xisbiga u cid waxa uu ka soo xaadir waayay ama uu ka cudur daartay inuu doodaasi uu ka qayb galo dooda waxa idin socodsiin doona anigoo Maxamed Cabdi Iliga ujeedada dooda ugu weyn ee xurkeedu yahayna waxa ay tahay 3 sanadood oo ay uga dhimayeen maalmo kooban xukuumadda xisbiga kulmiye maxaa la qabtay maxay si dadku filayeen maxaa si bulshada ku noqday doodan ayaa waxaynu ku eegi doonaa qodobada ugu muhiimsan ee nolosha dhaqan dhaqaale ee bulshada reer Soomaaliland ay ka filayeen xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo halka ay taagan tahay iyadoo dadweynuhu ay ku kala aragti duwan yihiin waxa la qabtay iyo waxa dhiman aragtidaasi mid la midana ay qabaan xisbiyada mucaaradka iyo muxaafidku kala duwanaanshahaasi mid la mid ah haddaba dooda waxa aan ku horeysiin doonaa bal asxaabta mucaaradkaahi fikirka ay ka qabaan xukuumaddu waxa ay qabatay iyadoo uu inoo joogo dhinaca kalena afayeenka xisbiga kulmiye oo arintaasi isaguna dhinaciisa ka falanqeyn doona kaalmaha ay xukuumaddu ka geysatay 3 sanadood barka jaamac batuun ayaan ku soo dhaweynayaa بسم الله الرحمن الرحيم واد ما سنتهي محمد عبد إليك adiga iyo bahda TV guba waxaan u baahanayaa walaalkay Cabdinaasir oo afayeenka kulbiya oo madasha isaguna jooga runtii damaanadu tolaan anagu hadalnay qiimeyn baanu sameynay mas'uuliyadda guud ee dalka naga saaran waxa weeyaan toosin iyo tilmaam hadba xukuumadda talada dalka haysa inaanu ummadda u ifino barnaamijkii dalka lagu hagayay ee doorashada ku galeen si loogu talagalay wax ma uga qabsoomeen mise uga may qabsoomeen doodayadu waxa weeyaan wixii xukuumadda loo doortay inaanay waxba ka qabsoomin sababtaan saa u leenahay waxa weeyaan xukuumaddu cidda mas-uulka ka tahay waa annaga cidda cashuurtooda qaada waa annaga cidda wakiilka shacabka aanu codkoodu meel dheer gaaraynin inay wax ka yidhaahdaan waa annaga marka si kooban markaan u ururiyo waxaan isleeyahay filashadii xukuumaddu 3 sano kadib ummadda weli fajac baa haysta doorashadii 2017 dhacday waa doorashadii waxaan isleeyahay ugu adkeydee dalka ka dhacday inta Soomaaliland 3 sano sanka la gashay doorashadaasi wixii xaafadeed bay yeelatay oo xisbinimo ka tagtay doorashada kadib tartamayaashii kuraasta u tartamayay 3 oday waxa ku soo baxay madaxweynaha hadda talada dalka ay Muuse Biixi filashada markaa doorashada kadib wixii la filayay waxay ahayd marka koowaad ummadda kala tafaraaruqday ee ku kala aragti duwanaatay doorashadii ee hab qabiliga xitaa u kala fogaatay midayntooda mas'uuliyadda madaxweynaha bale inuu ummadda midayo madaxweynuhu iyo xukuumaddiisu ay dadka isku soo jeedaan iska daayay kuwii muruqooda maskaxdooda maalkooda geliyay ayaa intuu isu shiriyay ayuu wuxuu dhinacu dee qofku markuu madax noqdo dardaarinay duco ayaa waag marna isagaa lala dardaarmaa marna isagaa loo duceeyaa intuu madaxweynuhu hadalkii qaataba waxaan lagaba filan ayaa bishimihiisa ka soo boday wuxuu fartiinaad eedi doontaa marka waxaan doonayaa uun waxqabadkan doona waan u geli doonaa 3 sanadood waan u geli doonaa waxqabadka 3 sano waxa laga filayay arrimaha dibadda kow Soomaaliland waxa dunida ka iibisa waa 2 factor waa doorasho iyo ictiraaf dunida ka hesho doorashada waan u geli doonaa ictiraafka Soomaaliland dunidu aqoonsanayo halkii horta xukuumaddu dhigtay garaafkee ayuu gaarsiisay ma hoos buu dhacay mise garaafkeedu sare u kacay kow waxa ilaha adeega bulshada aasaasiga oo ee caafimaadka ee waxbarashada ee wadooyinka ee leyrka
ee biyaha maxaa bulshada ay u qabato xukuumaddu saa xasanno miisaaniyad bay maamulaysa daraska miisaaniyadda xitaa shalay la sii daayo maxaa ka qabsoomay wax laale iyo wax ka qabsoomay ballanqaadyadeedii oon 3 shay ahayn oonu sheegnay mooyaane wax kale maxay tahay saddexda shay isaga noo sheegay maxay saddexda shay qarsanta infrastructure oo kale waxa laga filayay in wadooyin fara badan la sameeyo waxa laga filayay in dalka la geliyo ila dhaqaale oo wax soo saar dalka u noqdo waliba maaska iyo muruqmaalka rajo loo abuuro nololeed waxa laga filayay oo kale marka laga hadlayo waa kaabayaasha dhaqaalaha markaan ka hadlayo waxa laga filayay oo kale de barnaamijyo balbalaaran oo intan ka balaaran oo de buugan ku qabo waa kan buugoodii buugoodu waa kanoo waa 2017 2022 waana 6 tiir 6 tiir buu dur istaagay cabdinaasir bune afayeenka xisbiga kulmiye ayaan siinayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin maxamed cabdi ilig iyo bahda telefishanka MMTV iyo walaalkay barkhad oo matalaya ama ku hadlaya afka xisbiga mucaaradka ee wadani aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa run ahaantii haddaan ku soo dhawaado waxa dee su-aashaad barkhad ku horreysiisay waxay ahayd maxaa u qabsoomay 3 sano ee aad ku dhaliilaysaan waxa weeye xisbigan talada haya ee kulmiye ee xukuumaddan maanta joogtaa ka dhalatay barkhad si toos ah uu gudagelin waxa weeye buuggan uu sito iyo waxa weeye iyo dhaliilahooga rasmiga ay hayaan wuxuu ku horeeyay doorashadii dalka ka dhacday 2017 oo uu sheegay in ay ahayd doorashadii abid ugu adkayd horta doorashadii abid ugu adkayd ma ahayd doorashooyin ka horeeyay madaxtooyo ayaa dalka ka dhici jiray doorashadii ugu horeysay ee dalkan madaxtinimo ka dhacday wuxuu tartanku ku dhex maray daahir riyaale iyo waxa weeye axmed siiraaye iyo faysal cali waraabe tiradii ugu yarayd ee farcididood baa lagu kala qaaday isagoo axmed siiraaye cabqari siyaasi ah xisbi weyn hogaaminaya ayuu aqbalay oo la ballaadhni uu u yeeshay inuu aqbalo dadkiisii taageerayaashiisiina uu u sheegay uu waxa weeye doorashadii laga helay marka doorasho aynu galaynana dalkan waxa yaalla uun nin guulaysta iyo nin guuldarraysta xisbi guulaysta iyo xisbi guuldarraysta ama xisbi guulaysta iyo laba xisbi guuldarraysta oo waxaynu dhiganay wey marka haddii aanad u lahayn laaballaadhni iyo geesinimo aad dadkaaga ugu sheegto waxa weeye in doorashadii lagaa helay dee maxaad marka horeba kursiga madaxweynaha ka soo doonaysay sideed sadal u hogaamin lahaydeen waddani haddaad tihiin waxa weeye inaad shacbiga reer somalilan isku wadaan haddaad aqbaliba weydeen doorashadii aad arkaysay waxa weeye 80 kun iyo dheeraadka ahayd lagu kala badiyey maxaad samayn lahaydeen haddii 80 codna sidii axmed siiraaye laynaga heli lahaa ta aad tiri waxa weeyaan kala qaybsanaanta dalka dee kala qaybsanaanta dalka doorashaa dhacday doorasha markay dalka ka dhacdayna xukuumad baa timiday labadii waxa weeye xisbi mucaaradna sida qaanuunku dalku sheegaya automatical waxay noqonayaan xisbiye mucaarada inaad shaqadiina qabsataan baa haydo si dadku u midoobaan doorashooyin baa lagaga baxaye doorasho markiiba shaqadiinii u horreysay qabataan waxay noqotay madaxweyne muuse biixi cabdi maalintii la dhaariyay 14 December 2017 wuxuu miisaaniyaddii 2018 ku daray doorashadii golaha wakiilada iyo doorashadii golayaasha deegaanka 4 bilood kadib xisbiga wadani waxay si rasmi ah u soo saareen guddi doorasho 2 sano waqtigoodu u harsan yahay inay yiraahdaan kalsoonida kala noqon iyagoo hab qaanuuniyan aanu maraynin sharciyad ay dad nimankaasi ku eedeynayaan aanay jirin marka qaybsanaanta uu sheegayo shacbiga waxa dimuqraadiyadda loo sameeyay in lagaga baxo waa doorashooyin iyaga 3 sano hor taagna guddiday waxa weeye diideen 2 sano ay markii dambana khubara waxa weeye commission oo aqoonsadeen oo soo saareen marka waxa weeye xisbigani waa xisbi jaahwareer siyaasadeed uu soo waajahay waxana mana haystaan mistaaqiye siyaasi oo ay dalkan ku hogaamiyaan ama ay ku caaridaan oo shacbiga reer Soomaaliland u sheegaan waxaad ku soo noqotaa afayeen mudane maxaad 3 sanadood qabatay 3 sano waxaa dadku idinka filayay ma gaadhin naga filayay waxay ahayd dalka Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland inuu ahaado qaran madax bannaan inuu ahaado qaran Soomaaliland oo waxa weeye kaabayaashiisa dhaqaale iyo kaabayaashiisa horumareedba ay xukuumadda uu hogaaminaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi 2017 aakhirkiisii soo baxday inay wax ka qabato arrimaha dibadda arrimaha gudaha caafimaadka waxbarashada biyaha waxa weeye hirgelinta dimuqraadiyadda
isku wadaysta dadka waxyaalaadkaasoo dhanba waxaanu aaminsannahay inay tahay xukuumaddii ugu wanaagsanayd ee muddada 3 sano iminka ay ku dhowdahay haddaan tusaale fudud kuu soo qaato waxa weeye waxaan wax ka qabanno arkaysaa iminka wuxuu kaabayaasha ama arrimaha bulshada dadka sida tooska u taabtay waxaad og tahay maanta iyadoo xukuumaddaasi ay muddo kooban ay joogtay inaanu dhammaystirnay oo 25 kilomitir ama 24 kilomitir wax ka yar uu nooga harsan yahay wadadii 284 kilomitir ahayd ee waxa weeyaan ceeri gaabo inay maanta gabagabo ku dhowdahay oo maantada aynu joognana aynu arkayno in waxa weeye wasiirkii iyo dad badan oo Soomaaliland birmigeyday ay joogaan marka nimankan ay dhaliilayaan xisbiga wadan iyo barxad ay maalintii dhaweytan ay soo qaatay waxa weeye wadada ceeri gaabo budget bay leeyihiin dastuuriya oo waxa weeye xisbiyada lagu kabo oo waxa weeyaan aanu siinaa weli intay isxilqaameen waxay xukuumaddu qabatay bit by bit intay u soo dul istaageen may odhanin wadadii ceeri gaabo ee halkaa ay ka qaadeen ama ay ballan qaadeen waa naga dul taagan halkaas taagantay Hargeysa ka caytama way qodobadaada qodobayso arrimaha bulshada maxaad ka qabateen caafimaadka waxbarashada iyo wadooyinkaas aan ka qabanay waxbarashada Soomaaliland waa markii ugu horeysay ee xukuumadda Muuse Biixi ay joogtay ee la tayeeyay kaalmihii ugu horeeyayna dugsiyadeena maanta aad arkayso iyo imtixaanaadkii u dambeeyay dhawaan la galay waa markii ugu horeysay ee iskuulada dawliga ay kaalmaha hore ka galaan waxbarashada Soomaaliland taariikhda Soomaaliland way maxay ku timiday tayeey iyo waxay ku timiday siyaasad cad oo xukuumadda madaxweyne Biixi ay u dhigtay maxay ku tayeysay marka maxay ku tayeysay qaab nuucii u tayeysay qaabka waxa u tayeysay kow waxa dalkan jiri jiray musuq badan baa jiri jiray musuq maasuqa xukuumaddan xididada u siibtay waana takeli ma eg musuq markaan ku leehayna dhinac kasta u galaa tacliintu galaa biyuhu galaa caafimaadku galaa arrimaha dibadda galaa arrimaha guduhu galaa bulshadu galaa waxaasoo dhanba xukuumadda maanta joogtaay xididada u siibtay waana siyaasadda keli hatay maanta xisbiyada mucaaradka iyo dad badan oo suuqa ka hadlaya ku caaradeen xukuumadda maanta joogtay Muuse Biixi muxuu xididada ugu siiday musuq maasuq way marka muxuu kaasa waxbarashadii tayeeyay waxbarashada waxay ku tayeeyay siyaasad cad oo xukuumaddu lahayd iyo waxyaalaad badan oo musuq uu ku yahay oo xididada loo siibay maxaad aaminsantahay waxbarashada iyo wadooyinka marka laga hadlo qodob baynu u geli doonaa waxyaabaha laga hadlay ee wax ka qabashada u baahnaa ama 7 qodob ee ugu waaweyn si dooduna ay u soo koobnaato marka qodobada uu Cabdinaasir ka hadlay wax laga qabtay tayada waxbarashada maxaad ka aaminsantahay qodobadiisa horta Cabdinaasir uu baahsay midba ku saxayay doorashada marka aynu ka hadlayno mas'uuliyadda doorashada qabashadeedu cid saaran tahay ومدحونها وهذا ديدين إنه قبض هذا رئيس هذا رئيس هذا رئيس هذا رئيس دقيسين هذا رئيس دقيسين هذا رئيس دقيسين هذا رئيس دقيسين هذا دقيسو هذا رئيس دقيسين حسن استماع بليس هو دقيسين كمان نحكي أنا نحضره ماشي نبير دور سونشرو ومدحتنimada mas'uuliyadeeda laga leexinayo waxa daliil u ah doodayma ka miska taala adigan ku weydiinaya ama isaga baan weydiinaya dalkayna doorasho ka dhacdo ma shaqo cirro u taala mana ha shaqo Faysal u taala mana ha shaqo xisbiyada u taala dalka inay doorasho ka dhacdo mas'uuliyadda koowaad waxay saaran tahay madaxweynaha talada dalka iyo xukuumaddiisa iyaga haya budgetka iyaga haya ciidanka iyaga haya nabadgelyada iyaga haya dalka taladiisa taas wada annagu doorasho doon baan ahay tabashada yada commissionka saanu doonin meeshu ma aha supermarket qof iska leeyahay annaga key stakeholder qabiilna ma maamulo cid kalena ma maamusho arrimo qaran commissionkuna waa siirwale qofka garsoorka ah maxkamadaha sharciga aanu garanayn malaha walaalkay maxkamadaha qofka victimka ah ama dadka dacwadu u dhaxayso wax xaq u leeyihiin garsooraha ay ku qanci waayeen judgmentkiisa inay duraan for the first procedure waa laga bedelaa oo garsoore kale loo doorta neutrality iyo kalsoonidii aan ku qabnay siqadii commissionka aan ku qabnay baad ka doodaysaa kadibna taayadaba u dhacdo wata la kala daray imikana waa doorashada war dhigeyso war horta dhigeyso war horta dhigeyso war been ma sheegnay dhigeyso laba doorasho kulmiye qabtay midna tii golaha deegaanka ahayd oo dhiig baa ku daatay midna waxa ahayd tii madaxtooyadoo dadkiisna weli alaanka qaar baan xabaalaha xitaa isugu tahay oo iyaguna ay ka helayeen inay dadka kala farfaraan taa doorashada bartaas ka leey waxbarashada iyo barnaamijkeeda horda waxaan aynu ka hadlaynaa ilaan hadal iyo huraag lama wada facts and figures baa miska la yimaada si academic inuu doodayna
xukuumad baanu qiibeynayna 3 sanadood dalkan iyo dadkan ka mas'uula waxay qabatay iyo waxay qaban wax xukuumadda uu sheegan karayo ma ikaad wuxuu sheegan karayo ninka la yiraahdo Cabdinaasir maaha waxa adigu sheegan karasana maaha waa hal irmaan oo dalka iyo dadka ka dhaxaysa caanaheeduna cadaalad iyo sinaan iyo nabadgelyo iyo wadajir iyo xuquuq muwaadin horta u kaadi laga maasho qodobka ku soo dhawaan anu factis aan figures baan wataa buugani waa 2017 iyo 2020 maaha hadal iyo horaar waxaan dhiskay waxbarashadu ka hadlaya karwaati waxbarashada barnaamijka waxbarashada ay ku galeen waa 6 tiir كان wuxuu soo galay arrimaha bulshada oo caafimaadka ka koob waxbarashada ka koob waan ku sheegay wala la dhigso ku sheegay waxbarashada barta waxa ku qoran waxaanu dhisi doonaa secondary waa barta ma ku qoranta waxaan ka beel sheegay ma bal hal secondary dalka musabbixii xukuumaddiisu ay ka hirgeliyeen ummadda maqlaysaa noo sheeg waa qodob horta war marka ka baxa gal siyaasad ka baxo dhageyso war siyaasadna ma jeexi karaysaa war siyaasadna ma jeexi karaysaa war waxa walaaliyo waxa jeexday ma jirtay doodeeda dhageyso doodeeda dhageyso دعوتها اللي جيسان كنا دعوتها قلت بوجن محمد ويكان بليسي كان بوجن علمي بدأ علمي جواك كعربي بقوليش كلام بقولي وحنا كان لما روايتنا وحنا كان مرة دي قضوني ما دوك هذا محل دي قضوني تميس وحنا ما دي من بنت بالشدة وشيكتين ما شيء واربنتي بالشدة هذا شيكتين واربنتي بالشدة أنا شيء أنا بيجي ساعة الغني واربنتي بالشدة بيجي بيجي أديكم محسن قضبة الحيين أطول غير الدولة إنه عشق مويدي كابياش دقالي أرمينا أوكي هذا واحد وضع ده ما يرسل يسمى ده مو بينه بيت بالشدة وشيكان بيت بالشدة وشيكان ما مش هيجي نادي يسوع ده ما هي نجسو ده ما هو نجسو وارد يسوع أديكم محسن هلا دي قدرة ساعة دي قدرة واكرة ده واكرة نجسو ده صنع كل شيء waxay dhaadeen computer labis si tayo marka ay waxaan ka hadlaynaa waa tayo marka tiisu uu leeyahay waxbaan tayeeyay computer labis baan iskuulada dhiganaa gaar ahaan qaybta sayniska secondaryada hal iskuulo 6 gobol ee dalka computer lab xukuumaddiisu ay dhigta hasha waa factis aan fikir su'aan ka soo war horta dhageyso waxay leedahay waxaanu samaynaynaa dugsi kaste oo gobol kasta ku yaala gobol kasta waxaanu ka dhisaynaa 7 library hal library oo qaranka loo dhisay si aqoonta dhalinyarada ay u kobacdo horta waa dhagax dhig looga baahnay sheeg 3 sano joogtay anaga noo ruwaayad ka shaqeynaysaa har sheego wakaas hal library ha sheego xukuumaddu ay dhistay library wax waxay sheegeen waxaan ku gabagabeynayaa waxaan deeqa waxbarasho sanduuqa deeqaha waxbarashada Soomaaliland oo ilaa heer PhD ayaanu sameeynaa sanduuqa xagee ku sameeyay bal ummadda hawsha taasi waa waxbarashada markuu ka hadlayo okay caafimaadka ila waxaanu ka hadlaynaa basic needs caafimaadka 3 sano u dhamaaday oo sanka la galay iska daa Soomaaliland inay MCH ka dhisaan iska daa inay cusbitaal ka dhisaan dhaqaalaha ugu badan ee muwaadiniinta Soomaaliland wuxuu ku baxaa dhakhaatiirta Turkiga iyo Hindiya wasiiradooda xilka ka haya iyo iyagoo xukuumadda iyo xisbigooda aan cusbitaalka weyn Hargeysa oo kii 1953 Ingiriis ku dhisay ayaa tayadiisa aan isku aamini karin qof mas'uul la dhigi karin Yurub taawdo listan 300 oo mitir buu u jiraa madaxtooyada dhan ee madaxweynaha xafiiskiisa ku yaala waa ta keentay iyadoo dalku xaalad cajiiba uu galay oo dunida ay kala xidhmato coronavirus uu nagalay intay awoodi kari waayeen oskajiniye ambalaasyo inay u dawarsi tageen shirkaduhuna intay oskajinadii iyo ambalaasyadii keeneen
loo dhiibay 9 milyan oo dollar meesha geeyeen iyo xisaab xidh ay sameeyeen ma jirto marka kaasina waa caafimaad waa caafimaad waa kan ku qoran caafimaad almeedii dawaadeer waa kan dawaadii kan qoray waa kan caafimaad waxaad tirahdeen waxaanu ka sameynay naaba tirahdeen ceeri gaabo hospital baanu ka dhisana ummadda u sheegay hospitalka ceeri gaabo ka dhisan 3 sano xanaanaydan ka dhisin waxaad tirahdeen boorman hospital weyn oo isku filnaansha ka dhisana maxaad ka dhisteen waxaad ku jirta meesha la yiraahdo burco maxaad ka dhisteen waa kuwii siyaad bariye ingiriisku ka tageen bala inaad rinjiyeysaan caafimaadka iyo waxbarashada iyo intaa si guud adiga uga hadlaya kaalinta maanta taagantiin iyo dhaqaalaha geliseen iyo adeegii bulshada waxa iska bedelay si aynu bulshadeena daawanaysayna ay meel u timaado ay u fahmaan dooda la isku hayo maxay tahay fahankaaga guud raagi maayo waan uga jawaabay waxbarashada heerka aanu maanta gaarsiinaan ku barkad wuxuu raadinayaa qol ma qasinta la qaato xadhiga laga jaro xoolo laguma xireynayo dadkii iyo siyaasadii cadayd ee waxbarashada haddana dalka u jeexin dee dhismo fooqoo la dhisay macna ma sameeyo laakiin waxaa muhiima inaad siyaasad cad oo waxbarashadii Somaliland oo maanta anagu dalkan waxa weeye 5 sano iyo 10 sano oo maanta madaxweyne qaanuunka Somaliland Muuse siinayo demaa laakiin waxa looga baay 100 sano soo socda wixii looga aylaha siyaasad cad baanu taa ka sameeyay wala markii u horeysaan ku ee Somaliland ay dhacdo iskuulada dawladdu inay kaalmaha hore waxbarashada ka galaan intaasana tayo kugu filan oo qofku qalinkiisa waxa weeyaan uu ku meel maro arinta caafimaadka Somaliland oo dhan maanta markaad eegto heer iyo heer degmo ilaa tuulo ilaa gobol meel aan MCH ka dhisnayn meel una isbitaal ka dhisnayn oo saddexdaasna waxaanu gaarsiinay umul roorku dadkii uu ku dhacay iyo dumaradii waxa weeyaan ambalaasiyada waayay in maanta meel kasta xukuumadda iyo xisbiga kulmiyaba looga soo mahadnaqayo oo og tahay maalin walba in wasiirka caafimaadku fadhiisan laayay oo waxa weeyaan 10 tuulo intuu isku maro iyo intaasoo MCH maalin walba xadhiga ka jaraya de haddayna iyagu waxa weeye waxyaalaadkii loogu talagalay budgetka iyo siyaasadda qarankan in lagu hormariyo waxaanu xisbi ahaan miisaaniyadda dalka lacag baa loogu daray haddayna iyagu intay hargeysa ka tagaan war hadday hargeysa ka tagaan de ortag ceerigaabo ortag oo boorama tag booramadan iyo ceerigaabada soo qabatay saddex isbitaal baanu ka dhisnay ceerigaabo de ortag oo wasaaradda caafimaadka u tag oo ceerigaabo tag oo soo arag oo indhaaga ku soo arag buugaygu ma jacayl ku sidataa iyo hargeysaad ka hadashee gobolada tago budget baad leedahay miisaaniyadda xisbiga lagu siiyay intaad baxdo baabuur qaado tago shir jaraa'id ku soo qabo halkay wax ka qabteen laakiin buugaygan jacaylka haddaad u sidato de barqadow ruuxdaada hadday joogto waxa weeye kulmiye jismigaaguna wadani joogo oo kulmiyaalka ku sidata de iska kaale xisbiga jacayl baad u sidataa horta buugan horta su'aal baan ku weydiinaa horta weli ma toddobaad bixinoo dee toddoba cishaabad xisbiga xilkiisa haysaa xog badanna kama haysid oo waaba taasa daliilay inaad iska kalifan tahay walaalo horta ma dhegeyso may qodobada ku suran anu intaan dalka xog ka hayaa kama haysid horta dhegeyso buugan kulmiyaa tahay cidda qorta miyaad garanaysaa aan ku soo dhawaad cidda qorta buugan aan ku soo dhawaad inaan xog haynin baa cadeynaysaa buugan cidda qorta sheekh qarab baa qoray lama qorin ayaa qormaada qoray xisbigaaga qoray qofka qoray qofka maxaa ka rabaa qofka raadisay waa qof baa ku muuqdo cilqaba tahay qofka raadisay war waxa sheegtaa adduunka qof lama ataaga bulshooyo dadkan caayis iska daayo siyaasad xisbiga qortay oo dad baa qoray wasiirka warfaafinta Soomaaliya aad u dirteen baa qoray Ismaan Dubad baa buugan ka qoray buugan Soomaaliya waa jecel oo qadar iyo Soomaaliya lacag lagaaga soo diray waranaga nololeeyay Soomaaliya qodobaynu ka wada hadlaynaa barkhad qodobaynu suuri iyo barkhad qodobaynu ka wada hadlaynaa buuga halkaas ka dhig qodobaynu ka wada hadlaynaa may aynu qodobo ka wada hadlaynaa موضوع برخط بولي موضوع دودة موضوع دودة لبدي هذا كذي كعلي موضوع دودة هنا بدل موضوع دودة حويان bulshaa ina daawanaysa ummad baa wax loo qabtay masiirkoodii iyo mustaqbalkoodii nololeed baa laga hadlaya mustaqbalkii nololeed
hadlaynaa waxaynu ka wada hadlaynaa waa mustaqbal nololeed weeyaan barkhad iyo buuni barkhad iyo buuni aniga barkhad aniga buuni hadalku ka xidhin barkhad hadalku buuni barkhad hadalku ka xidhin barkhad hadalku ka xidhin barkhad hadalku ka xidhin barkhad hadalku ka xidhin barkhad buuni barkhad hadalku ka xidhin hadalku ka xidhin hadalku ka xidhin fadlan aba maatan hadalku ka xidhin dad baynu warramaynaa waxaan jecelahay bulshada masiirkoodii iyo mustaqbalkoodii nololeed ayaa miiska inoo dul yaalla waxaynu ka doodaynaa ummadda somalilan ee dhaqaalahoodii iyo noloshoodii iyo rajadoodii mustaqbalka meesha loo wado ayaynu ka doodaynaa waxaan jecelahay inaynu ku soo ururno oo aynu bulshada tooda ka hadalno oo aynu si fahno hadalno buuni dhaqaalaha Soomaaliya waa ka baxay qodobka dhaqaalaha Soomaaliya shakhsiya weerarneesh ma yaalo shakhsi weerarneesh ma yaalo aniga xuquuq baan leeyahay xuquuqdan leeyahay markuu aniga igu leeyahay wada ay tamaysaa ayaan ugu ma sheegin waxa ay facts and figures baan soo bandhigay wala si degan baynu wada hadlaynaa taa iska la buug xisbi ku guuleystay oo aad ku guul way Soomaaliya isaga horta markuu ay ka hadlay annaga mucaaradadayada qofkana hogaamiya waa Cabdiraxmaan Ciro oo Soomaaliland idab iyo akhlaaq ka suntan horta aan isla fahno ma mucaaradad dal jacayl ka muuqdo aan fawdo iyo mucaaradad fawdo iyo balabaas aan ka sheekay waxaan dhageyso wata markuu anaga lagu leeyahay aggressive party iyo saasati hogaamiyahayga horta aan wadna dadkan keebina waka 12 sanaad baarlamaanka uu hogaaminayay sharci kale haato dalka looga aayo kamuu tagin hogaamiyaha sheegaysaa maxaa sheegaysaa 2008 Cabdinaasir de Muqdisho naga yimid oo ku maqnaayay 2008 horta dalka muu joogin ana waramay isaga 2008 iyo 9kii waxa dalka ka dhacay horta dhageyso horta wixii ka dhacay nimanka maanta dalka madaxda ka uu doodayo ayaa inta madaxtooyadu hor istaagan bay laangaabka degad baan ka saaray ay cid haday ay tamayso هذا المديرة مثل برخد أديكو ما بدنا نكسر نقولنا وحين نكسر نقولنا ومهمة ماشى الشخصي بوني يبرخد ميالو أي بوني يبرخد ما تعلو بل عين شخصي ماشى ما تعلو حسبية قرن أو مد الصومالي لان مسير كودا قاعدتكو هي بد متشان ضد وحي تحي محل قبطي صدح سنوات maxaa sadhiman maxaa la gabay maxaa la qaban doona maxaa harsan qodobadeen waxay dhaqaalaha ku soo qodobka dhaqaalaha Soomaaliland dhaqaalaha isbedelkeeda 3 sanadood maxay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ka qabatay maxaa la taaban karaa ummadda u sheegi kartaa maanta barqad 3 sano ayaa noo dhamaanaya hadii ay baqadar December taaynu ku jirno bartankay waxana aasaas noo ahaa inaanu dalkan wad ogeydo isna uu ogaayo xisbiga waafkiisa ku hadlayana uu ogaayo siday u baaxaadagaysi ay u ruxmaysay lacagta shilin Soomaalilandkii maalintu kayseen maanta Soomaaliland shilinkeegi sidoo u fariistayna marxaatay ka yihiin iyaga laftirkooda ee kaadi waxaanu sameeynay siyaasad cad oo dhaqaalaha dalka lagu hogaamiyo maxaanu sameeynay dad u ehela ayuu madaxweyne Biixi u magacaabay haday tahay bangiga dhexe Soomaaliland iyo gudida boorka ee waxa weeyaan dhaqaalaha Soomaaliland hogaamisay waxa weeyaan bankeena fadhigoogu yahay ayuu madaxweynuhu magacaabay siyaasad cad bay dajiyeen waana tamaanta lacagteena ku fadhiisatay ay mar kale hata u ruxmi weyday iyadoo waxa weeyaan COVID-19 uu helay oo waxa weeyaan dalkan diyaaradihiisa joogsadeen oo xoolihiisa joogsadeen oo xaj sanadka ay naan tagin iyada arkaysa inaanu mushaarkii shaqaalahana bixinay isla mar ahaantaasina waxa weeyaan shilinkii Soomaaliland aanu mar kale hata halkiisa ka dhaqaaqin waa siyaasad cad ee marxab iskaga ma yimaadin
soo hadamaad garan dhaqaalaha taasaanu ka qabanay waana ta ugu weynaa maanta qaranka Soomaaliland uu ku faanayo jiritaanka qarannimadun lama ilaaliye inaad qaranka Soomaaliland lacagtiisa ilaalisaan halgan gaara iyo waxay kaaga baahan tahay siyaasad gaara tan xukuumaddu way ku guuleysatay waana ta maanta shacbiga reer Soomaaliland ay ku majiirtaan xukuumadda maanta joogta biixi iyo golihiisa wasaaradda wata ay ku majiirtaan dhaqaalaha halkaasaanu gaarsiinay markhaatina uu ka yahay isaga iyo xisbigiisuba ii kaadi kaabayaasha kale dhaqaalaha maalin dhaweyta wuxuu sheegay in waxa weeye 3 mashruuc xukuumaddan ku guuleysatay oo ka mid tahay bridge-ka Camuudeed uu ka mid yahay bangiga Oodweyne laga dhisay uu ka mid yahay barnaamijka shaqo qaran hadduu fahansan yahay qiimaha ay waxa weeye dalka u soo kordhisay saddexdaa oo arrimood uu sheegay maxaa Oodweyne meena Soomaaliland ahay hogaamiyahooga yidhi madaxweynuhu berri toole wuxuu seexanayaa Oodweyne oo maalin ka hor sheegay isaga yidhi Oodweyne baan loo qodobada ku soo shakhsiga ka daa qodobada ku soo dhaw ka jawaab waa dhaqaalaha maxaad ka qabatay aniga ay eegina dhaqaalaha waxaad ka qabatay lagu sheeg waxa weeyaan مليون دولار كوبحي مدحونا بيح مالنتي دويتو xariga ka soo jaray qiimaha maanta uu gobolka Awdal iyo degmada Boorama u kordhiyay waxa marqaati ka amaanta dadka reer Soomaaliland Awdal ku nool iyo degmada Boorama tusaale fudud hadaan ku siiyo jaamacadda Camuud oo jaamacadda ugu fac weyna waxa weeyaan jaamacadaha dalka jaamacadii qarankana ayaa waxa bridge-kaasi uu kala gooyay iyada iyo ardaydii iyo shacbigii deedna ay noqotay in kambas iyo suuqa dhexdooda ay jaamacadu ka kiraysato isagoo madaxweynuhu og mudaxileedkiisii ugu horeeyay iyo qalin jabintii ugu horeysay ee uu ka qayb galay isagoo madaxweynaha ayuu yiri maanta hadii alla ay soo gaarsiiyaan oo madaxweynaha halkii shalay markaan dugsiga Camuudeed ku jirnay boorama waqtiga ku nimanina dhaqaalaha maxaad ka qabatay sheeg war miisaaniyada kaalay in maanta aanu madaxweynaha damaad buldeera boorama laga dhisay war buldeera boorama war miisaaniyada sheeg war miisaaniyada sheeg hada miisaaniyada sheeg war miisaaniyada sheeg war dhaqaalaha laga hadlayaa bulda boorama ka dhistay oo ka sheegin war iska daayo war birish إيكاد بريجك بورا ما لقى دسي قيمات ماي إسلاما قبنو ماي وحنا نسكولا قبنين وانو دسناي لكن هو فدي وهرا لو شيء هو فدي ما الشعب غير الصومال لكن ما كواحد عند الدراسة إيجا كده شخصيتك كده خذ بضاعة وعكو شو الشيء يا برنامج كمان تشقق واحد وقتها مانت الصومال لان مركز الله يراضي إن هيدا شقالها iyo wasaaradda shaqo gelinta in qof la shaqaaleysiyo markay noqoto dibta loo mari jiray waad garanaysaa siyaasad cad intuu madaxweynuhu keenay barnaamij rajadii dadkana abuuraya isla mar ahaantaasina qarannimada iyo muwaadinimada iyo inuu qofku waxa weeye soo tababarto madaxweynuhu isagoo siyaasadda ka duulay ayuu barnaamij shaqo qaran la yiraahdo sameeyay thaniyan maxaa ku xiga waxa ku xiga inuu qofku isku kalsoonaado oo qalinkiisa oo wax ku helo maanta waxay barnaamijka shaqo qaran wax laga soo helayaa intaasoo family oo isku qoysa oo qalinkooga wax ku helay maxaa ka weyn inaad ummadda qalinka adaysa cadaalad ugu samayso oo qalinkaaga waxbaad soo baratay ku ciil baxa tiraado waxa ka weyn ee maanta la qiimeyn lahaa marka waa qodob aan ku guuleysanay waa qodob aan ku guuleysanay oo waliba qarankani u aaya taariikhdeedana iska leeyahay madaxweyne barkad ku soo dhawo maxaad ka qabtaa qodobada dhaqaalaha iyo shaqo qaran qodob horta waxaad weydiisay dhaqaalaha dhaqaaluhu kaabayaal buu leeyahay waxay ahayd bahalka la yiraahdo barnaamijkoodii ay sheegeen miiskan waxaan u keenno oo kula xisaabtamayna anaga mas'uuliyad ba shacabka naga saaran shacabku access iyagu ma helayaan in la xisaabtamaan laakiin anaga mas'uuliyadoodu voice of the voiceless baan codka dadka anaga matalna kaabayaasha dhaqaalaha jidadka kowka jidadka ayaa kowka infrastructure baa la yiraahdaa mana isagu ma garanaya qodobeynu ku soo dhawaanaysaana dood inooga ballaan لما بتكتد وطاء محل السماء وطاء يسبوني هذا ما يستو وميزانية أنا كنيسي كنتجا دودي سؤال كتير horta dhageyso si fiican baan xusn istimaacu qayb uu ka yahay doodaynu inay aflaxdo kaabayaasha dhaqaalaha wadooyinka kooka bartan waxa ku qoran xukuumadda kulmiye marka dhalato waxaanu dhisaynaa wadada isku xidha Boorama wadada isku xidha Oodweyne iyo Buro waa qodob waatan kama been sheegay waxaanu dhamaystiri doonaa waxaanu dhisi doonaa wadada Beligubadle ilaa Hargeysa waa tan ilagow waxaanu dhisi doonaa wadada Salaxle ilaa Hargeysa waa tan wadada Dowgacad bartaa ka baxdan oo dhisi doonaa waxaanu dhisi doonaa beenan wadada Arabsiyo ilaa Allah ay baday waa waxay qoreen oo aanan anigu ka been sheegin oo Google xisbiga waa tasoo kan wana waa qodobka labaad
waxay yidhahdeen kaabayaasha dhaqaalaha waxaa ka qayba garoomada waxay yidhahdeen waxaan dhisi doonaa garoonka aanu dhammaystiri doonaa magaalada boorama waa kan waa garoonka airportka boorama aanu dhammaystiri doonaa waayahay waxaanu dhisi doonaa garoonka magaalada burco waa kan ku qorana diyuuradaha waxaan dhisi doonaa garoonka magaalada ceeri gaabo ee diyuuradaha waa kan ku qoran waa su-aal hortaalla waxaan kaga waxaysanaya dekadaha waa kaabayaasha dhaqaalaha waxaanu dhisi doonaa dekada saylac baan dekadeeda dhisi doonaa waxa ku qoran waxaanu dhisi doonaa dekada maxay ahayd xiis dekada maydh waa tan ku qoran waxaanu dhisi doonaa oonu samayn doonaa dekad lughay yeelato bartama ku qoranta waa kaabayaashii dhaqaalaha waa intaasiba waa intaa iska daa inay dekada dhisaan iska daa wadood miiska taalla iska daa inay dekada dhisaan inay wadooyin dhisaan ma oran karayo ood weyne wadadeeda dhisay ma oran karayo bilgubadla wada ka dhisay ma oran karayo alla badan waay inay dekad wata laga soo dekad da factis aan figures baan ku buuri wax shakhsi ma yaalo wax shakhsi qodobada qodobayso waarin aad ugu dhageyso berbera kaari dhowr oo wadada inta hargeysa ka baxda berbera gashay fanayo xukuumaddu leedahay kumay bixin waa mashruuc madaxweyne ziilaayo markii hore kale waan ogahay waqtigeedu yimid waan ogahay war isla kulmiye ka dhalatay wadada meesha bikama dhalaan waa tiraayo laga siisi waa noo ogolahay wadada berbera kaari dhowr 3 sano ka hor bay bilaabay 3 sano kadib madaxweyne dhan oo qaran inta ka xaynba 13 kilomitir ilaa maqaska agaasiba waxaydada wasaaradda arrimaha gaadiidka ka tar waa disgusting waa yaqiiqsi in haybada madaxweynaha iyo sharaftiisa la ilaaliyo waa wax qabad laantii tiiha ku jira wadoona dhisan waxna may qaban iyo xadhiga ka soo jarayaan isma qabatee kaabayaasha dhaqaalaha barnaamijka shaqo qaran uu ka hadlay oo ku noqon doonaa kaabayaasha dhaqaalaha galaya wali aan ku gabagabeynay beeraha 3 sanadood gurigaaga cuntada lagu kariyo haday basal tahay haday tahay xabuub haday tamaandho tahay inta Itoobiya laga keenaa hal dalagoo dawladdu ay samaysay oo maanta koronahaasi hadduu dunida kala xidho isku filnaansho ummadeed lagu gaari karayo oo beera ah oo la taaban karayo suuqa lagu iibinayo xukuumaddu ay soo saartay ama ay ku dhiirigelisay ima sheegi inta markaa kaga baxo ta shaqo qaran marka horeba wasaarad kasta waxa joogay xafiiska aad gashay institutionka aad gashaba 5 ama 6 ama 7 xafiis fadhiya barnaamijka shaqo qaran istiraatiijiyadiisu maxay ahayd 3 milyan baa sanad kasta ku baxa inamada dhibooyada la geliyay ee la soo saaray ee magaalada la yiri hay'ad kastaba iyadoo 7 qof xafiiskii ay joogeen la yiri kuna ku darsada maxaa maaska ishariyada lagu darnay maada ku daray waa diyaar u xoogiye institution ku shaqeynaya qofku imika adigu ilig baa tahay institution baad maamulaysaa waad garan karaysaa human resource ka u baahan tahay human resource ka public institutions ku baahan yihiin ma hayn la kabla isku warnaga miisaaniyadu haynay warshadeynta la abuuro in muruqa iyo maskaxda dalkani leeyahay la geliyo inta ciyaalka direes loo xiro in sidii object la ciyaarsiyo si aad baranayhay waan ka baxay beeraha waxay aad ka qabateen sheeg wadooyinka sheeg waxa dhanba sheeg tan ku soo noqo waxa la yiraahdaa akhlaaqdu waxay biqishaa sida nabaadku u biqlo أن الأمم ما بقيت أخلاقهم فإن ذهبت أخلاقهم ذهب ورت أخلاق أدبدوا في صمال حنت أدبدوا في صمال حنت أدبدوا في صمال حنت أديك يا كأخلاق حنت بس ضمير كذا ورقبل البحر ماله وأقوله وحضارنا وشرف لك كسرت يا كأخلاق حنت وريا كأخلاق هذا بريسبل ورماذا أخلاق اللي جاي شيء كره ورماذا أخلاق اللي جاي شيء كره بقاد باتهاي ورماذا أخلاق وهالله اللي أخلاق مش شيء كره وحقبض يمسيروا مدير بينكم وضعهم شيء شخص اللي يدعى هذا كان يدكم كينين لبدينين السكتان يدكم يجري قلب بدأ ينكم وضعهم وضده وحكاه هذا عربسي قبيله وحكاه هذا وحكاه هذا وضده دكلها أوضل إيام الدار هذا إياه وحكاه هذا معك ولا وحال كقبطون بدوش وارا أنت أنا أنا بقول كده وضده عرجاب لما أديك بيده واي 20 كيلومتر بنودمان وقضوا لا بقول 4 كيلومتر واحد wadada la yiraahdo burco iyo ceergaabana shalay oo inu joogno waa warbaahintii rag kamid iyo wasiirkii jidadkuna joogaan 148 kilomitir bay dhamaatay hatagana soo arkan wadada gabil ee arabsiyo 2 sano ka hor bay dhamaatay
subaxaan boora ma ka soo tooso in toddobada ka soo baxa boora dibi leeyahay arabsiga kuma taala arabsiyaal la badan ku taala waxaan u dhamaadaan anu ku sheegay arabsiyaal la badan ku sheegay ku aad buuga ku qoran way dhamaad buuga waxa ku qoran boora ma markaan ka soo baxo halkan aan ka qurxda haddaan boora ma waxa weey ka soo qurxdana saacad baan halkan ku imaadaa way dhamaatay taasina waxaanu bixinay wadada Looyacado iyo boora ma isku xidha wadada Looyacado iyo boora ma isku xidha waxaanu bixinay sirfeenkeygii hadda oo shirkad la yiraahdo Saba Engineering oo dalka Itoobiya laga leeyahay ayaa ku guuleysatay waa saddex sano kadib waa boora horta wax kasta wuxuu qaataa waqti wadooyinkan la sameeynayaana carratuulkan maaha waxa lagu shushubaya wadooyin caalamiya oo mustaqbalka dalkan leeyahay aanu dhisayna marka cilmidiisa sanada 12 bilood badan doonaya marka taabsiyeen wuxuu ku leeyahay 3 sano kadib maxaa doonaysaa 3 sano kadib mayna halkan fadhiya doonaysaa ma maxaad qabatay waan ku dhameystirayaa wadada silacba wadada silacba bixiyaan ku leeyahay maxaad bixisay maxaad kontraaggeegi baa bixiyay waxa la dhisayaa horta waxa la dhisayaa mayna wadadii aawo soo kala sanadka koowaad markuu qabanaa sanadka koowaad hada bas dhageyso barqada dhamaysto wadad buuni wado Looyacado ilaa boora baan bixinay Saba Engineering hay'ad ayaa ku guuleysatay way caddahay waananu bixinay kontraaggeegi biriishadii halkii marayeen wadada qaabkeegii sirfinkeegii oo dhanba ayaa la qaaday marka wadada dhismiga bilaabay wadadaasi hawsheedu way naga dhantay intii wadooyinka halkaas kaga baxaya wax soo saarka dalku ka hadlay beeruhu ka hadlay Somaliland xukuumadda Muuse Biixi intay joogto waa markii u horeysay ee kayd raashin oo isku filan dalka kan yeesho oo kayd raashin aan leeyahay waxaan ku yaala COVID-19 kilo waxa weeye laga baxay waxaan ku yaala dalku ku yaala hadana tagayinba oo calaamado uu ka aadasho dama waxaan ku yaala daba loo sheego ma daaqo mashquul haatu burhanakum in kuntum min as-saadiqin hay'aduhu waa kuwee xisbi mucaarada xisbi mucaarada wararka dhageyso Faysal Ali Sheekh Uti Faysal Ali Sheekh Uti Soomaaliya hay'adda masiibooyinka Soomaaliya حزب معارضة تهود دلك وحوي حزب قرابات كته فيصل على الشيخ نبو وزير بابا بسمه دحين مقعود حزب عارضة ياته ليش هتكون هذا الشيء اللي أوربك عشان ما وحنا لهاي كيد كراشي كهدارد ماشي كويا لا تجين وانا بدك أورنين ده ما يشاك بل ماشي كويا لا كيد كراشي أقول كويا حفيز بولايه ده حفيز بولايه مو كويا الحفيز والله حفيز كاس قبطايو هيا قلب كوجمي سواكا إنه ليه يعني كم كان دردار ما ينسينا ين لا هي سجاج وحاسو مر ما يا وحكى له شخص مسكين فيصل علي الشيخ مسكين سو كلف hay-adda wuxuu qaranka Soomaaliland u qaybsan yahay hay-adda abaabulka saarka iyo masiibooyinka iyo wixii degdegay ma kayd baahay marka wasaaradda beeruhu wax soo saarkeega markay soo saarto ee madaxweynaha iyo qaranku ka gudoomo hay-adda kaydisa weey waana markii u horeysay Soomaaliland kayd raashin yeelato oo isku filan oo dalkan isku filaasho gaadhay saddexdaas lagu dhawaadkay xukuumadda madaxweyne Biixi joogto xisbiyada mucaaradka waxa loo aasaasay oo u taagan yihiin inay noqdaan iska xisbi mucaarad wax qaradka ka fiyaan xukuumadda maxaa kamid ah wuxuu u baahan yahay intuu tagay inuu yiraahdo wadadan waxaasi ka qaban waayeen beeraha waxaasi ka qaban waayeen waaniga dul taagan $15,000 bil walba qaataan arday agoona jaamacad ma ka bixiyaan kusoo dhawtaas taasi ma dhago mas'uuliyad loo doorto qofka mas'uuliyadda ku fashilmaan ma charity organization ma waa ka soo baxay ta kosob kama haysta siyaasadda ama charity organization ma waa ka shaqeeya xisbi qaran baa siyaasadda adiga umada ka qabanaya daadan umada ka qabanato daadan ka qabanato tasodiga wala iyo dadkan caadiga iyo dadaxda ida wala soo wax sheegi maxaa caaya bas shahaadad ku sidata madaxda caaya maxay madaxda qaranka oo ayaa oo ayaa madaxda qaranku waa yada shay soo bar maxaa ka barta maxamar baa joogtaa adaba xamarkeeni صديق هذا حمر لقيني يا هذا حمر لقيني يا اللي استثمار كتير يا الله كان داير يا رجال وانا داير يا رجال هذا المديرة هذا الافلقات وهذا المطار هذا المديرة قضب كن كان اسكو قبلنا كشيء قضب كن كود هذا adigu adigu warliis ma ku shaqeyn laga saaray حسن شيخ والله وقتنا لا joogto ee qaymul wadan hada ay lagu afin xisbiyada waxaan ku gaadhay marsan waa garanay shaqa qarar arintu ka hadlay wuxuu yahay barkhad la baan u dhalan oo dhisnay wuxuu yiri qodobkii ee lama qabno maskaxna kama buuni aniga soo weydiinay arinta shaqa qaran
wuu idinku eedeeyey wuxuu idinku eedeeyey barkada uu leeyahay qorshihii loo sameeyey bay dowladdu garab maraysaa waa in qorshihii dhalinyarada loogu talagalay baahidii iyo wixii oo dhan bay garab maraysaa in wax kale loo abuurahay maxaad ka aaminsantay shaqo qaran shaqadaasi iyo eedaasi maxaad ka walaal waxa weeye ku raali gelin mayno inaan waxa weeye maalin kasta intuu ummadda soo hor istaago been cad u sheegay waa shaqo qaran ku soo boqo waa shaqo qaran ku soo boqo shaqo qaran waa barnaamij qaranka Soomaaliland leeyahay waana siyaasad madaxweynaha maanta joogay xukuumaddiisa ka dhalatay kulmiye ay hirgelisay waana waxa weeye dalkana uu mahadiyey laalaabadna male shacbiga reer Soomaalilandna maanta waxa weeye arintaasi waxay og yihiin in qaranka Soomaaliland markii uu hor waxana siyaasaddan ku timid madaxweyne biixi oo hogaamiye soo ah oo dalkan soo halgamay oo dawladda soo arkay oo u jeexnayd wadada uu dalkan ku hagayay barnaamijka shaqo qaran iyo qiimihiisu uu u cad yahay ayaa lagu hirgeliyay waxa kale oo waxa weeye halkaas ka soo dhaxbaxday dhalinyarteennii maanta aad arkaysa dalkan inuu ictiraafaysadii oo dawladda maanta ina taageeraya aanay jirin oo isku tashanay inagu oo inu ognahay maanta waxa waxbarashadeena iyo giddi aynu ku maamulnay cashuurta yar aynu dadka ka qaadayna ay tahay inuu yaa intaa wixii ka dambeeyay ardayga jaamacad wax ka soo baxay ee qalinkiisa halka ku soo gaaray inuu baryootamo uu oday iyo suldaan iyo hebel oo ka xeydhaado qalinkiisa waxa ku helay barnaamijkaas aan u abuuraya wuna hirgal maantana Soomaaliland waxa way anigu iska daacid kale family anigu maanta ka soo jeediyo bulshada aan ka soo jeedo shakhsiyan Cabdinaasir Hadaan waxaan ogahay 5 sano ee maanta xukuumaddaasi jirta inaanaan qofna naga shaqo tagi kareen hadduna barnaamijka shaqo qaran jirin way sabab cadee waxa weeye imtixaan qof wax ku helay وسيبانا سيبانا موادين هاي دلك ولا شو حق ما لاين سيبانا دوق شقة تيجي كره ما نتقول كلام وارجوبل كا وارجوبل امتحان صح لو ما قال وارجوبل كا وارجوبل اقون اقون يا وحكا وارجوبل كا يعني هذيك على موادين بمية صدق على موادين هذيك بقى سيبانا موادين بمية مشكلتها ودك يا لا waxay tawad maalin walba ka adasha ay kala badan yihiin resources-keena dalkeena iyo waxaynu haysanay waxayna soo galayna kala badan ardayda maalin walba inoo soo qalin jabinaysa inta yarayna dhaxtaala hadaynan cadaalad ka sameeyay dawladdu maxay waxa la ka cadaalad darro saaray baa leeyahay isagii baa suuriyan ku wari musuq maasuq oo dhan cadaaladna uu sameeyay barnaamijka shaqo qaranna wuxuu noqday barnaamij qaranka Soomaaliland mahadiyo taariikhda madaxweyne biixi baa ku gali doona waana barnaamij waxa weeye rasmi oo qaranka Soomaaliland maanta u aayi doona iyagoo gambarito la talada dalka u ordaya haday yimaadaan waxa weeye waa barnaamij yaalo مسخاص سؤالك كودي ولا أنا أنت مهم كيف كسر دوارنا وحيتين نلشة بلشة Somaliland جودهان محا إسكبد لي سدح سنة شرتي حكومة مدحونا بيحي محا اتجاه نلشة بلشة هيستا محوية دقالها عافيمات كقضب كسالة قاعدة تذكر محا وكردي تذكر محا ويرجلي قضب كاس الدنيا برخة كسر دوي طبعا سنتها محمد يعني dowladnimadu wayna damaanad qaadaan nolosha dadkeeda wayna ka qabtirtaa biyaha wayna ka qabtirtaa caafimaadka wayna ka qabtirtaa wadooyinka wayna ka qabtirtaa tacliinta ummadda marka bilariska laga dhiso ayay nation dalalka kale la tartami karayaan noqon karayaan maxaa saawlay iska daa Somaliland kale caasimadda waxa ku nool 1.5 milyan isku wada dar saddexdan imika madaxweyne Muuse Biixi talada dalka iyo xukuumaddiisa xisbiga 7 balaas siilaayowgeed 10 ka sanadood caasimadda qaranka ee lagu soo hiranayo waxa biyaha siiya booyado iyo biyoolayaal oo barxad la ka keena igumana beenin karay waxa leerka siiya shirkado private leerkii dawladdii ay lahayd warshadii leerka dawladii hore ay ka dhaxashay Somaliland gaar ahaan Hargeysa ku yaal dad barefada lagu wareejiyo lisi oo qaatay dawladdu dad ma utilities ka noocaas ma bixiso wana nolosha caadiga ah oo ka hadlay marka nolol caadiga ah waxbarashada jaamacado dawliya oo dadka kafeeya oo waxbarashadooda iyo tacliintooda verified tahay oo academically la dhisay oo campus ahaan dhisan ma hayna Ethiopian 30 sano kadib ciyaalkeena ugu dawarsi waxbarasho tagayta gaar ahaan shaqaalaha dawladda marka ka hadlayno iska da base-ka hoose boqolkiiba 5 ayaan waxbarashada fursad u helin dadka dayarta Soomaaliya iskuulladeena ay bilaash baan ku dhigay lacag kaasha iskuullada laga qaada waa nolosha asaasiga marka ka hadlayno caafimaadka markan ku soo dhawaano caafimaadkii baan ku soo dhawaano caafimaadka waxaan u baahnayn
in degmo kaste oo caasimadda ku taala in tuulo kaste waa in dhowtolo kiis baan ka sheekeeyey indhahaygaan ku arkay qodobadaada ku soo oo caafimaadka ah hooyo umul aroortay baa gaari la soo saaray waa mas-uuliyadahan doonaya inay dowladdu darantay aan leeyahay madaxweyne iyo xukuumaddaada maxay tahay wax kaga qabo hosbital aan joogay baa la keenay islaantaasi tuulo magaalada koornaheeda ka timid jaamacadda baan kaga hadlay iyadoo umul aroortay ilmihii ku baktiyey gaari caanilay bahalka la yidhahdo qadarka xukuumaddu ma maamusho adarikaad gaari ay xoolo saaran yihiin lagu keenay ilmihiina ka baktiyey iyadina ay dhiig aroortay wixii qadar anagu ma maamulle cashuurtay qaadaan waxay ahayd hooyadaas in xanaano loogu sameeyo marka nolosha guud ahaan somaliland marka laga hadlayo haddaba nolosha guud ahaan marka somaliland laga hadlayo taasi waa bayskoodii nololeed maxaa iska bedelay maxaa hay iska bedelay dadku mayna dowladi dhalato laba kursi laba madaxweyne ay ku kala tageen xukuumad horena baxday xukuumad dambana timid ma waxaan inta ahayn ma waxaan horta inta ahayn mise baahiyaha adeega asaasiga bulshada u ah inta aan soo sheegay in ka badan baa camal la-aantu dalku waa 5% inamada graduate gareeya jaamacaduhu intijaah ma haystaan maqaaxiyaha wada fadhiya shaqo qaran bay haystaan wax allaaliyo wax lagu jeeyo wada caayaysa maalin walba wax allaaliyo wax lagu jeeyana ma jirto wana waxa macaaye afka hagaajiso af dadka rajo beelin dadka rajo beelin af Soomaaliga war dadka rajo beelin war af Soomaaliga war dadka rajo beelin weyn baa tahay ma dadka rajo beelin qul haatu burhanakum in kuntum min as-sadiqin anu war quraanka iska daa war runta barta quraanka daa adigu war runta ilaahay dad buu kula hadlayay adiga kugula hadlayay iska daa waa dadka kan bini'aadamku ka mid yahay waa dadka kan waa dadka kan doodaada miska shaqa la'aantu waa 5% rajabeelka dalka ka taaganay iyo maamul xumada ina haysata maanta maalin ay ka rajo xun yihiin dhalinyaradeenna wax baratay ma jirto maxamed shaqa la'aanta aad ka baxay marka nolosha guud ahaan markay rajay xukuumaddu abuurtaa warshad may samaynin beero may samaynin biyo may samaynin wadooyin may samaynin maxaa dal xukuumaddu ay cashuur bay qaataan qodobadan ka hadlayno marka waaqiciga saxdaa laga hadlo qodobo dowladdu taabatay oo aynu tilmaami karno waxaa ka mid a buugaagta dowladdu lacagta ay ka bixiso dhalinyarada iskuullada waxbarashada ee iyadu dib u iibisay dowladdii ay ku kabtay sanduuqii dhalinyarada jira qodobada marka laga hadlayo iskuulkan dowladda ee tababarka macallimiinta dib macallimiinta loo tababarayo ayaa qaybahaas ka mid ah biyahoo kale dibugelintan dhaqaalaha badan lagu bixiyay laakiin aan biyo weli dhammaystirmin baa ka mid ah qodobadaasi ka macaarad ahaan ma ogtihiinoo ma aragteenoo ma eegteenoo inay sax yihiin iyo inay bulshada wax u kordhinayaan inay soo noqon karaan iyo inay wax u tarayaan ma eegteen qodobada ma yihiin qodobo sax oo dowladdu maaha waana sababeynay anugu waxaygu sabab bay leeyihin waxayna leeyihin dood cilmi iyo caqli ku dhisan dowladdu madbacad qaran bay leedahay manhajka dowliga waxbarashada inay suuqa ka iibisa maayo horta waa inay madbacadeeda qaran ku samaysaa manhajka dowladdu ay wadadka wax ugu dhigaysana waa inay iyadu siyaasadeeda yeelataa ima aha inu dal kale laga soo waarin dad baa manhajka soo daabaca dalka ku dhex yimiya not maaha wax public waafaqsanya wasaaradda waxbarashada soo gaar waay taasi waa taa tan biyaha noloshuba biyo ka bilaabmata markaan hogaamiye ahay waa in aan si akaademiga u fikiraa waa inaan baahida bulshadeeda ku xisaabtamaa waa inaan hilaadin karayaa maxaa nolosha bulshada badbaadinaya biyihii baa ka koowa 3 sano kadib isagoo lahaa magaalada biyogelin baan ka samaynaya madaxweynihii iyo xukuumaddiisa iyo barnaamijkoodiiba kan yahay in haddana booyada iyo biyoleenoodh amyaano kiisa shilalka ugu badani barta ka dhacaan maxamed oo miyaa taqaanaa waxay ka dhacaan aw barkhadle iyo hargeysa dhexdooda oo intaasoo muwaadin ay ku nafwaan oo booyada isku dhacaan waana mas-uuliyad darada xukuumadda oo biyahayna samaysaa taasina waa qodob tababarka macallimiinta 6 gobolba in laga sameeyo bay ahayd statistics qiyaaska lagama qaadanayo caasimadda iyo 4 qof ee jooga wayn boorama xarunta tababarka macallimiinta laga sameeyahay say ku galeen ballanka ceerigaabeyna ku taalabahay laascaanoodina ku taalabahay maxaa hatay adeega dowliga la furayo maahe waa siyaasad qaran waxaad ka hadlaysaa waana in la xakameeyo siyaasadda waxbarashada oo gacanta lagu hayo marka qodobadaas aad u leedahay sidaa ay tahay waxaa laga qabtay uma arka inay sax tahay way buuri aan ku soo dhawaana xukuumadda madaxweyne biixi dadku waxay ka filayeen isbedel ka ballaaran inta imika muuqato sida mucaaradka iyo bulshada taageertaaba ay qabaan
maadaama muwaadin wadanka intaasoo sanadood deganaa oon dibad u bixin uu ahaa ma aaminsan tahay in filashadii dadku wax ka yar ay xukuumaddu qabatay oo aanay qaban halkii ay dadku gaadhsiisanayeen 3 sannadood horta waxaan kuu sheegayaa marka rabitaan shacab uu yimaad ee madaxweyne iyo xukuumad la doorto waxay dadku ka filayaan marka horeba wixii ay ku aaminaan ay ku doorteen xukuumadda maanta joogta madaxweyne biixi hogaaminaya xisbiga afkiisa aan ku hadlaya ka dhalatayna waxay maanta intaa u barqad sheegay haddaan tusaale ahaan kuu soo qaato arrimaha biyuhu ka hadlay maanta waxaan kuu sheegayaa biyihii caasimadda ee 30 sano ku dhowaad loo taag waayey ee waxa weeye kolba mashruuceega maanta waxa weeyaan xisbiyada qaarkood ay joogaan kuwii lunsaday in maanta ay mar 60% ay dhamaato beebis dhigistuna hadho xafiiska imika aynu warka ku qabanayno ama doodaynu ku qabanayno hortiis cagafyadii baa daadsan maanta magaalada Hargeysa sakidaad uga baxdaba waa taa beebabkii la jeexayo way dhamaatay dhammaan dadweyne ku dhowdahay wadooyin iyo waxba ku soo celcelinaya dhammaan wadooyinkii dalka oo dhan xukuumaddu inay ku guuleysatay waana dhamaystirtay waana wax cad oo maanta warbaahintii dalku ay soo tabinayaan oo maanta wadadii ceergaabo arkaysa boorama wadiga arkay laga soo shaqo tagay caasimadii Hargeysa wadiga arkay goboladii dalka oo dhan wadiga arkay wax kasta waxa weeyaan anagu 85% xukuumadani saddexdaas anagu inaanu gaadhnaanu aaminsanahay filashadaad sheegaysaan ku sheegaya siyaasadda markay noqoto dalka siyaasad baa lagu hogaaminaya madaxweyne biixu wuxuu la kowsaday sixir barar dhaqaalihii dalkan oo waxa koobaad marka qarannimada laga yimaado in la difaaco in la ilaaliyo in loo halgamo oo baaxadaga yimid wuxuu yimiday iyada oo dalka ay ka jiraan khilaafiyo uu barkhad xisbiga uu afkiisa ku hadlayay uu dadka ku kala qaybiyay oo maalin walba waxay dhaqaale ka galay oo jabhada abuureen adiga cadeen halkeenu jabhada ku sameynaa adaa qirtee qodobadaada laga hayaa uu ka jawaabi doonaa siyaasad cad baanu ka yeelanay ummadiina waanu midaynay waxay sameeyeen oo dhan waanu suulinay doorashooyinkii bay noqotay doorashooyinkii dalkani kaga bixi lahaa inay ummadiisu kala foofto oo dadku xaq dastuuriga u leeyihiin inay codeeyaan waxna doortaan lana doortana iyaga hortaagnaa ilaahay uu ku ciqaabo komishinkii ay diidanayeen ayay khubara u aqoonsadeen inay guddi doorasho yihiin waxaan kuu sheegayaa dalkan waxa ugu weyn ee maanta biixi iyo xukuumaddiisa wadani iyo qayrkii iyo dadka suuqa ka hadlaaba ku haystaan waa suulinta iyo la dagaalanka musuq maasuqa iyo afmisharadii suuqa lagu baadi jiray xididadaan u saarnay qodobka uu ka mid yahay waa qodobadaynu haru ka mid yahay mudane cabdinaasir afayeenka xisbiga kulmiyaati miyaad aaminsantahay musuq maasuqu inuu Soomaaliland ka suulay oo aanu musuq maasuq jirin oo xukuumadda biixi suulisay maadaama aanaynu arag saraakiil madax wasiiro gudoomiyayaal agaasimayaal dhibaato musuq maasuq intay geysteen xabsiga la dhigay ama lagu eedeeyay ama la yiri musuq maasuqaasi geysteen ma waxa leeday xukuumaddu dhamaanteed waa ka nadiif musuq maasuq mas'uul u sareeyo ilaa ka hooseeya ma taasad aaminsanta musuq maasuq inuu suulay waa si wanaagsan xisbi ahaan waxaanu aaminsanahay qof la xiro iyo qof la eedeeyo inay misqaala darro tahay laakiin arinta ugu weyn ay tahay musuq maasuqu muxuu ku suulaa siyaasad cad ood kula dagaalanto inaad musuqa siyaasad ka yeelato aad kula dagaalamayso siyaasad baanu kula dagaalanay miisaaniyadii leh oo dhaqaalihii wadanka wixii ka baxayay leh oo wixii soo galayay leh oo mucaawimooyinkii leh ayaa xal ka sugaya xukuumad shanaad oo iman doontaad xal ka sugaysaa marka xukuumadda shanaad oo iman doontaad xal ka sii sugaysaa xal kama sugayo laga inuu raaxaysan doono hada ma rosba waxa way kuwa adigu ku raaxaysan doona dalkan inuu u fikiro xil umadeed baa lagu raaxaysan oo kuwa adigu aad wallahi wajigay xil umadeed baa lagu raaxaysan wuxuu ku raaxaysan loogu raaxaysan xilka umadeed siyaasad qurux badan oo dalkan lagu hogaamiyo wararta dhageysada afkiisu qaado leadership kuma raaxaysta cidda ka soo baxda leadership kuma siyaasad lagu suuliyo musuq maasuqa ayay dawladda biixi dhigtay buu yiri afayeenka xisbiga kulmiye maxaad ka aaminsantahay horta meesha la yidhaahdo arrinta musuq maasuqa wuxuu yidhi siyaasad baanu ka dejin national policyga
marka public administration ka la dhiganayo anu master public administration horta dhigayso national policy marka la sameeyo waxa uu ka horta dhigayso waxa doonaya isaga doonaya su'aasha sunnah wadi Abdi Nasir inta ka diliga waa ta ka jawaabayo soo siyaasad qaran moora national policy xeerku laba bukuun kama midna waa mid baarlamaanku sameeyo marka sharciga laga hadlayo midna waa siyaasad xukuumadda ka timaado marka dambe la legitimiate gareeyo xeer noqota policy number baa jira bal haynoo sheego siyaasadda qaranka uu leeyahay waxaanu ka sameeynay la dagaalanka musuqmaasuqa numberkeedii xilliga la sameeyay ya war miiska fadhidaa ma dawsha war ma dawsha layma tarafka gayagiba tilataay ma siyaasadda shabsoo ka TV maya sida ay tantan ugu kaalay war barata shay ay tantaay war barata shay inta ayda waqti ku bixiso xafiisyada dawladda waqti ku bixi ha uu ku daayay hadalku daa hadalkaaga way hadalkiisa uu ku daayay hadalku daa way soo koob marka musuqa la dagaalamo waxa leedahay xeer ay dawladdu ku sameysay musuq la dagaalamo ma jira waa doorba ku jirta dawladda xisbiga ku sameysay dawsha waa tan qodobka labaad xukuumadda duleysatay wixii hogaaminaya qodobka labaad intaas uu guuri laayay qodobka labaad qodobka labaad horta siyaasadda muwaniino mu sheegin waxa hadal tiraale miska uu ka kacay qodobka labaad ميد بالري محاود بيو وكالة سيستو نبى أنتو بابليك صور فلسطين حسب جودة كترسان يلي بلوردي دنت جودة بان يبينيو يدون عندنا إنه كلتش أنا بروسيس شرعان المرينو أيان أنت نسوي بناني هبل أيان محاها تبقى لكم نمسينيو هبل بانسين حدي رول أفلوج وشقينيو ومسؤولات سقايلة دجالة واحد دونه يمرك أدو شرعي قدامك شقينيو والله بشر أنا تدريسو أدو شرعي وشقينيو واحد وكل مسؤولات سقايلة دجالة من نبيل فان إنسان كل شيء تبت فان كل غرق لنا بيسيجس كده حسب ما ده حسب جوشي سوما شيء ما له وان سوري سوما له ماشي اللي يراهدو شرعي مركن ويجن واحد إنها تدوركو إنك هاجرو حزب قرابة تبدأ مليكة أنت سوق كعي هو مسؤوليته كوت عليه إذا توجيس بقى كده على الحكومة دي حسب هذا أنا بدل شيء أنا أقول لك استنى دوت هذي ما تقولي كده دوت هذا دوت هذا سوق واحد هالشرعية حيران تون عقاب كوسو وتدعوه ده بدنا محكمة الله حزب قرابة عطسو محكمة رونتاي واحد شيء ما تلاقي محكمة أنت لك يعني إنك دنت جود الشرع يصدق حبوبه ومستي وحنانه ودكسي وجرامه إن لو يدي أود أنت تكون يبسي السوق بدو دنت جودة ومدة وحلا جدي لها قف هتكون سيسي شال كين لا ومسؤول حفيزتي وغضب وحش جاي responsibility أمام مسؤولية معمول أدلكوا حسب يكون ليه صح حكومة ما ساعته وحجرنا أيامي كويناش شاقي رك حواليه مدة بعد ورنا خوش إمي كاشة ورنا خوش إمي كاشة بنت كده يوم عريستي ورنا خوش هو حوري رجع حولها ومدة بعيد حسبيه كله منايا حداد قرنا يسرق حولها ومدة بعيد حسبيه كله منايا إلى حواليه مدة قاعدين مسؤولية دي دولة إذا كسرنا ما حد حلو إذا نداد مصباح كله مرك الله بهذه ما ننتهي ذكاء ربع أفضل شربه أنت دوركو حلي دولة هو سهر بيس تتبع مسخ لوقت كبور ما خلاص وقت الشوط كده أروح في سيده كل شيء هذه لما ده كاميرا ده ستة استبقى عادو أنا قال ماشي بوري هذا القدم أروح صحافة حرماء صحافة أكو قفي صحافة أكو قفي صحافة أكو قفي صحافة أكو قفي صحافة شرف برخة صحافة فرصة هذا وكسية فرصة دي سعادة دور لا يسبق صغاص بالسوق وير أردي وحكومتني وحكومتنا إشارات كمية كتاهي أما برخلو دلاعي أما الدلاعي قضبكم سماس خوينكم بحنا أنا أفر لا تنتظر بان
intaan la taliye madaxweyne noqday isaga anigu sidaada ismiyadoo ma kala dab qaado karaamadeeda qofeed macna principal iyo mabda baan madaxweyne biixo magacaaba kuriyood meesha inna lillahi ma bada wax jira habeen walba waa riyo lix sanadood baan mucaarad ahay aan samray adiguna adigoo shalay talo cid ka baxay ayaa samri kari weynayo in adeerka shalay talo adiga muu misaad ku lahayd wuu fashilmay si lagu bedelo siyaasadaydan cabdiraan faysal xilka ka qaaday markuu warkaaga harbaan taladii uu faysal ku siiyay qaado oo ahayd wadani ka xishoodo ku hadlin adigu buuni fadlan adigoo maadsan mudan afayeen waxaan idin ku codsanayaa maseerka dadka ee aad gacanta ku haysaan dadka ee bulshada Soomaaliland ee aad gacanta ku haysaan ee xisbiye qaran ku tihiin ee dadku idinku tixgeliyaan idinku raacaan idinku hogaamisaan ayaynu miiska kaga wada hadlaynaa arrin shakhsi miiska ma taalo waxaan jecelahay inaynu ku soo noqono qodobadeena qodobada iyo yootanka meesha ayay ka saarayaan dooda aynu ku soo noqono mar walba wax shakhsi oo idin muuqdaan ay jirin laba xisbi qaran baad kala matalaysaan laba afayeen baatiin ummad baa idin daawanaysa ummadda aynu tixgelino qodobka muhiimka ku soo noqonaya waxa siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliland 3 sanadood xukuumadda madaxweyne biixi ay jirtay maxaa la taaban karaa ayad leedahay waa laga qabtay maanta ummadda Soomaaliland aad u sheegi kartaa leedahay waxa sarka guulaysan siyaasadda arrimaha dibadda oo ku qotonta dalkani inuu qarankiisu madax banaanaado adduunyada ka mid noqdo madax banaanidiisii 1960 lumiyay uu la soo noqday inuu xaqiijiyo xukuumadda madaxweyne biixi waxay ka qabatay inay siyaasadda cad u jeexdo oo hogaamineed oo kala dambeyn leh oo nidaam leh oo qarannimo ka muuqato taasna maanta waxaad ogtahay adduunyadu inayna tiri dalka Soomaaliya waxay nagaga xidhan yihiin si dawlado caalamiyiin ay dhexdhexaadinayaan goobjoog ka yihiin arrintiina ku soo dhameystay waxaan xaqiijinay oo xukuumaddan ay xaqiijisay markastana ay diyaar u ahayd in marka wada hadalladaasi ay dhab noqdaan ay nimankaasi xamar joogaay ay diyaar noqdaan ay miiska yimaadaan fagaare caalamiyiin ay yimaadaan duwal waaweyna una dhexdhexaadinayaan arrinteedu ay tahay arrin waxa weeyaan cadceedaasi aan saxaabada lagu qarinaynin inaan waxa way qadiyadeeda iyo fagaaraheega ka sheegano madaxweyne waxa weeyaan waad ogtahay Ismaaciil Cumar Geelle inuu Djibouti ku martigeliyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo ka soo qayb galay duwal waaweyne ay yimaadeen taasi waa siyaasadda xukuumaddan oo ah xaqiijinta waxa weeyaan in aanu nimankaasi kala guranno adduunyadana waxa weeye aanu u tusno inaanu nahay dawlad isku kalsoon xukuumadeedina shacbigeegu ay aamineen isla mar ahaantaasina xaqiijinaysa waxa way qarankan siyaasadda arrimaha gudaha ku soo inta waa intu Siilaayo Turkiga ku qabtay laba dawladood oo wada hadlay madaxweynuhu hayo waxa leedahay meesha la yiraahdo ku soo dhawow ku soo dhawow qodobada ku soo dhawow intaas waa narration kulmiyu ka dhashay wana madaxweyne qiimaha da waa wada hadalkii Soomaaliya lagu furay Turkiga siyaasadda arrimaha dibadda wixii dhamayso qodobada ku soo dhawow dhamayso waxaan u sameeynay wasaaradda arrimaha dibadda inaanu tayeyno isla mar ahaantaasina u dhiibno madax xaqiijin karta inuu u cugto u dhiibo madaxweyne biixi waayo dadka shakhsiyaad ka baxo maxaad ka qabatay shakhsiyaad akhlaaq la'aanada dunyada shakhsiyaad iska daa waxa ma midha maxaad ka qabatay waa inuu qiyam lahaado maxaad ka qabatay waa inuu akhlaaq lahaado maxaad ka qabatay dad akhlaaq laanu dirnay waxa weeyaan aan caytamin oo dalkan intuu masiirkiisa qaaday garanaya halkay wax kaga xidhay waxay qabteen oo ku sheegayay in aan waxa weey dhaqaalihii ku bixi lahaa i'tiraaf raadinta shalay u dambeysana miisaaniyadda dalka waxa way qayb weyn ka ahay oo markii saacad shalay cali BBC shalay ay wareysanaysay ay weydiisay maxaad inta lacagta inta leegad ugu bixinaysaan i'tiraaf raadinta waa xaqiijin madaxweyne biixi 3 sano joogaba uu miisaaniyadda ugu daray narrationka ka waxa weey dawlad tago buuga soo qaado saad buuga kulmiyadtiido jeceshay miisaaniyadda soo qaado waxa ma wada tidey warta dhageysadee lana been ma watee ma faaktisan runta ku wataa halkan runta ku wataa halkan runta ku wataa waxaad qabatay halkan way nadiif qabtaa waxaad qabtay shay waxaan ku sheegaya maxaa siyaasadda arrimaha dibadda ka qabanay ummadda siyaasadda arrimaha dibaddu ay tahay oo ku qodontaa oo xaqiijinta madaxweyne biixi iyo xukuumaddiisana ay tahay dalkani in uu yeesho qaran madax bannaan taasna waxaa xaqiijinaysa xukuumadda madaxweynaha achievementa waxaanu tayeennay xafiisyadii safaaradeenu adduunyada ku lahayd waxaanu dalka keennay intaasoo duwala oo dawlado waaweyna oo dalkan markii hore waxa weeyaan iyo xukuumadii ka horreeyay ay ku guulaysan waayeen yaa kamid ah su'aasha wariyaha leh Soomaad garan yaa kamid ah difaaci soo sheegay yaa kamid ah noo sheeg ilaa codkii shacabka ku hadlay bal ummadda u sheeg markii u horeysay Soomaaliland duwal waaweyn ay safaarada ka furtaan yaa ka furtay dawladda Taiwan baa kamid Taiwan tahay Taiwan miya Djibouti baa kamid
oo Somaliland xafiis official ku leh oo maanta aad og tahay qaranka iyo xukuumadda madaxweyne bixiyalkii gaarsiisay siyaasadeedu maanta inanka Djibouti waxa way u dhashay dalka Djibouti u dhashay iyo inanta Djibouti u dhalatay ee halkan ilmo maanta ugu dhasho in maanta si rasmi ah looga siinayo warqadihii waxa way dalka Djibouti taasina waa siyaasad cad bay ku timid waxaad arkaysaa furfurnaanta dawladaha jaarka iyo siyaasadda iyo habdhaqanka wanaagsan ee xukuumaddan ay kula dhaqmayso waxaas oo dhaniba waxa way waa xaqiijin siyaasadda arrimaha dibadda ee xukuumadda biixi ay waxa way salka u dhigtay waxaan ku diidanahay anigu maba diiday anigu waxna ma diidayo waxna ma doonin laakiin wuxuun baan ka hadlaya tiirka shanaad waa siyaasadda arrimaha dibadda wixii ummadda ay u qoran baan leeyahay wax alaaliyo wax ka fuli ma jirto qodobka koowaad waxaanu ka duulaynaa si Somaliland baahida ugu weyn bulshada Somaliland ay qabto 30 sano waa in dunidu aqoonsataa اعتراف هدية لسوق هذا يبا شرنشر ومرا وين الدنيا اعتراف كان waxay bartan ku sheegeen inay doorashooyinkiisii baad haysay macna اعتراف hela inay 5 qaybood strategically isagu ma garanayaan oo sharaxay walaalkay 5 qaybood inay culays ka saarayaan waxa ka siyaasadda arrimaha dibadda si loo xoojiyo اعتراafka Soomaaliland midowga in laga kulmo midowga Afrika وكيل وقارة أيام مدوغا أفريقيا وكانت مدوغا أفريقيا نقول لك كان كو إلا كان إيجاد والله إن مدوغا يوروب يجعل حبنا الغيش إن مريكان حديد وين وسومال لان اعتراف كده ما دام سوبر باور كان بدونكم يا سيدي وشرطات إلا كان إن جامعة عربتها لولا لك قالوا وسي Somaliland calankeedu caalamka uga xismo qodobkan doonayna aan ka hadlaa intaasi ma waxba ka qabsoomay iima sheegi kareen nin midowga Yurub ka socda iima sheegi kareen nin midowga Afrika ka socda mid igaad ka socda mid jaamacadda Carabka ka socda safiir Mareykan ka socda oo Somaliland mid ama loo tagay ama miisaaniyadda ku baxaysa arrimaha dibadda barti loogu talagalay lagu bixay Thailand laba qaawin isma qaadi karayso Thailand يدي بلا اعتراف وقف في سوقه وانا بلاد ريكاد وابرتيكاد دولة اعتراف بان كدوني انا دولة اعتراف بان كدوني انه تايلاند يقوم يرستما دوني الدولة حتى له عالمكيga inuu caalamka geeyo ila mas'uuliyadii muwaadinimo isaga noo haye inuu caalamkayga caalamka madaxweynaha igu geeyo oo dunida ka birbidho waa tan ka rabay qurba joogta waxa ilaadan waxaanu sameyn doonaa xafiisyo badan وقرب جوجت الدنيا صدح سنضاد صدح سفر من مدحونا هذا الكبح سينايا ونوجين انت سفر وبح اعترافك ونوجين مدحون الريال هذا صدح سفر ما صدح سفر انا ما صدق يكون بقى مدحونا صدح سفر ببحي مدحون صدح سفر اي بحي مش جيبوتي بوكوتي جيبوتي معدو امانه من نيتوبي كوتي صولبا معها midna imaaraadku ku tago oo qalin ku soo galay waxaan ahayn inuu dalka uu kaga baxay isagoo ma sheegi karin qurba joogtu waa muwaadiniin dalkan maal gashaday dhaqaalahooda galiyay naftooda u huray waxay ahayd adaa qaybiyay barikaad inuu taga baxay inuu hay madaxweynuhu tago mas'uuliyadu iska dadka aad sheegayso waxana damqaysa madaxweyne waqti ku waxana wasaaradda arrimaha dibadda war muwaadiniin war magacoodu wax ku yahay war madaxweynuhu magacoodu wax ku yahay war muxuu bixi waayay dadkiisa ku tagi waayay uu soo miday waayay ilayda kala qaybiye kolba buura tagaysan moodaysa madaxweynaha qaranka qurba joogteen madaxweyne biix tagaya waa ina u qalanto mustawiyada madaxweynenimo war qortaan ma anu ka hadlo wakaalada qurba wasaaradda dadka ka soo aykamaya madaxweyne wuxuu doonayaa dooda inuu isma difaaci karo xukuumadani protocol bay leedahay beentaad umada u sheegtay un baan anigu soo bandhigay wax kale ma waa been sheegtay waa daahir iska dhig qurba joogta maxaa lagu sameyn lahaa qurba joogta maxaa yaala qurba joogta waxa mas'uul ka ah اعتراف bixiyaan iyo qorqol joogtaba madaxweynaha jamhuuriyadda maxay tahay marka eeda aad u jeedinayso qurba waxba qayso ka sheekaysaa qurba joogteen maxaa jira qurba joogteen marka dunida caalam iyo اعتراaf laga keenay laga yimaado maxaa lagu sameyn lahaa waxa kala qaybiye kulmiye muxuu ku kala qaybiyay
unitiga qurba joogta iyo dareenka muwaadinimada iyo shucuurta ka abuurmi jirtay UK waanu garanaynaa dowladdiisa ilaahay tii riyaalaba calanka Somaliland la wada xambaaranay imikana mid geesta uma eegeen uqdada iyo cudurka cidda dhalisayna waa iyaga wada xalin kari lahayd maxaad ka qabtaa horta waxaan maxaad ka qabtaa arrintaa uu sheegay maxaad ka qabtaan siyaasadda arrimaha dibadda xukuumadda waan kuu sheego siyaasad cad bay ka leedahay waxaan qurba joogaya waxaan ku wareegaysanaya barkhadna wasaaradda arrimaha dibaddu waxay samaysay leedahay wakaaladda qurba jooga jamhuuriyadda Soomaaliland miisaaniyadda qaranka ku jirta wakaaladaasana qaranka oo Soomaaliland oo dhan u qaabilsan wuxuu qurba jooga madaxweynaha qaranka Soomaaliland waa madaxweyne mas'uuliyad kama saarnaa la Soomaa waxa weeye hadda iligo ummaddu la hadlaya la soo wuxuu leeyahay mas'uuliyad kama saarnaa dawladda waaweyn baa la joogaanay sharcigooda ku haystaan ii sheeg ma dhibaata ku haysto oo leedahay ma xukuumadda xalili weydaad leedahay mas'uuliyad kama waxaad leedahay way tahriibeen waxa weeyaan dad baa meel lagu haystaayo laga soo furfuri kar leeyahay leedahay nish waxa weey damaanadiisa iyo wuxuu qaadanayay iyo waxa weeyaan noloshiisa oo dhan UK ay damaanad qaaday waa muwaadin Soomaaliland maxaa lagu sameyn lahaa waa ka cashuurta bixiya gaariga ka wadato waxa lagu sameyn lahaa waa ka dalkan maal gashaday qurba joog maalin walba lacag ba ku soo diraan way ku soo qodobka ugu dambeeya ku soo warna waxa weeyaan 2 sanadood baa xukuumadda madaxweyne biixi uga hadhay waqtigii muddo xileedkiisa qodobadaynu ka wada hadlayno ee ama wax laga qabtay ama aan wax laga qaban maxay tahay rajada aad ka qabtaan in aad qodobadii siyaasadeed ee xukuumaddu ay doonaysay inay wadanka ka hirgeliso 5 sano ay ku dhamaystiri karto ay ku qaban karto ma kula tahay baahiyii hadsanaa oo dhan inta la qabtay inta dhiman marka la isku daro maadaama wali waqtiidii harsan shanta sano ballanqaadka iyagii xukuumaddan waxaan ku wari inta ugu badnayd 158 way naga dhamaatay labada sano waa faakahaysi iyo waxa weeyaan iyo wixii kale ee qarankan aan u ballanqaaday de mas'uuliyad baa laga saaranayo ilaa waxa halkan ku qoran maaha xukuumaddan waxay hirgelinaysaa dalkan waxa weeye masiiro waaweyn inaanu gaarsiino waxa weeye beesha caalamka oo ka mid noqdaan nootaal arrimaha uu ka hadlaya barkhadna waxa weeye wadista dadka iyo qurba jooggan iyo waxaan uu ka hadlaya waxay ku xidhan tahay dadka maanta doonaya inay dalkan ilaa dalku maaha un doorasho madaxtooye la gale waa doorashadii belediyada iyo baarlamaankii iyo guurtidii intaba saddexdaasna xukuumadda maanta joogtay miisaaniyaddooda way naga dhandhido waa noogu darnay cidda hortaagnayd ee lahayd waxa weeyaan waanu dawaqsanoo gagabkii oran waxa weeye kolba commission iyo kolba maxay iyo ku wareegaysanayay xisbigooga ahayd arrinta maanta aan kaga furfurnay inay doorasho dhacdaana waxa weeye waa doorasho ku noqonaya waa sharci taas inaanu soo hormarin waa ta kaga gilgilsiisay og fashilkooga siyaasiga bulshada og inay ka baxayaan haddii uradii la furay markay arkeen watay doorashadii ku ogolaadeen hukuumikii shalay ay diidanaayeen ay lahaayeen waa qaayimiin ay khubaro ugu aqoonsadeen waynu ka hadalnaa waxaasoo dhan marka waxay gaadhaynaa xukuumaddani waxay ummadda u ballan qaaday 85% wayna dhammaystiran tahay waananu gaadhnay waananu xaqiijinaynaa ishaana macalina dadka Soomaaliland hal mid bay ka ilbixeen waxa weeye ku soo afmeeraya debatekayga waxay ka ilbixeen waqtigii Soomaaliland inaan afbishaara oo meel kaligii taagan oo beenaala ah oo xishoonaynin oo madaxda qaranka caaya uu wuxuu sheegi lahaa way ka ilbixeen labada sanadood ka filaysaa inay ku dhamaysto qodobadii xukuumadda horta luuqad siyaasi inaan ku wada hadalno dad siyaasiyiin baa maxay baa haboon Cabdinaasir wuxuu 2 sano noo hadhow faakahaysi meeshu mamarfish lagu qaylaa mina dawladda dadka waa adeegaysaa horta language ku ummadda kula hadlaya waan ku dhageysanaya anigu waan ku dhageysanaya qodobka labaad wuxuu qiri kari lahayaa awood darrada iyo hogaamin xumada dalka ka jirto qiri kari lahayaa markuu ugu leeyahay waxa la midayn kari lahayaa qurba joogta waxaan wax ka qaban kari lahaa maxay tahay arrimihii dibadda that means waa weakness aan leenahay waa hafritaanka arbaqad هذا مش شيء هذا مدحونا وقت كم هذا لو سيبا إن تدك قرن كلا بعضه واتما أنت مدحونا بيحي ذل كان يكدح على يوي أما كنا حنا مهدي هذا نوحي أنا كلسوني بيجا موقتها دودا قونيد بنكينيا كمان نحجليو وحول هذا كتشوابيا وحويديو مركب حظ لي رغدا شوية كده صوكو لا ما تقولنا هو كان المؤمن لا يكذب بنت لما تجي ولا جت جوابه قضب كلام الحقيقة كم هذا الشيء قضب كلام
ee meesha yaalla wuxuu ka hadlay uu yidhi guulaan ugaad guulihii midh allaaliya midh buugaa uu ka sheegay walaa arrimo dibadeed walaa caafimaad walaa wadada ceerigaaba shalay dadkii u sheegay soo ratay wadada booramiya labadii sannadood ee u hadhay ilama aha 3 sano waxay ku qaban kari waayeen 2 sannadood ku qabanayaan waaba dhamaystirnay maxaa u qabanaa adduunyada lama arag qofnimadiisa ku meel mari uu kari waayey oo intuu xisbi galo siyaasiyiinta Soomaaliland maanta ka jira mashaakilaadkeena haysta waxa kamid ah intuu xisbi galo xisbiga isagoo war u kala qaado inta xilkii laga qaado qof banaanka taagan intuu caayo haday ay cid ku helaysa afayeenka kulmiye kulmiye ayda maxamuud xaashibaad ku ayda maxamuud xaashibaad maxamuud adu ku baaray maxamuud xaashiyo tariye jirtooda jirta xilii magacaabo markuu madaxtooyada maxamuud xaashiyo ma naga saragnay adaa tima u jeedi jiray labada sanad ma ka filaysaa in dhamaystirto waxyaabaha ballan qaaday maadaama 3 sano dhamaadeen ma sababtaan ugu filan maxay tahay horta tima jarida iyo kabaha iyo waxan horta dhigayso may horta waa profession aniga aabahay adeerkay awowgay inaan xil helay muwaadin baan wahay waana dhegeyso dad professional oo shaqaysta waan dad professional dad professional oo shaqaysta oo karaamo leh oo muruqmaal oo dhibkooda maalabaan anagu maqarafad intaan hargeysa la soo maqarafad kuma dawrsan karaamadana gobol aqooneed dad ka soo jeeda warsiga xisbiyada war ogolow gaalada haddaan lacagada aqoon aan leeyahay kula hadlayo waxbaro jaamacadda siyaasaddan isku qabanay waxbarashaan isku qabanay adigoo mahadsan bar hadalku ka xidhi nuxurku wax weeyaan doodeenu inaynu bulshada fahansiino halkaynu taaganahay si qodobkii su-aashiidii mar labaad ku celinaya maxaa laga fili karaa xukuumadda kulmiye ee madaxweyne biixi in ay 2 sanadood ee soo socoto ku rajadiinu maxay tahay qodobada meesha aanu su'aasha ka hadlaya kama shakhsi meerar meesha ma yaalo qodob baynu ka wada hadlaynaa maxaad ka filaysaan anagu waxaanu ka filaynaa inaanay wixii loo doortay aanay qaban karin 3 sannadood waxay ku qaban weyday istiraatiijiyad iyo siyaasad ay ka yeelan weyday intaan sheegay caafimaad iyo biyo ictiraaf iyo caalamka loola xiriiro iyo horumar iyo dekada iyo maxay tahay meesha la yiraahdo ay ku qaban kari waayeen meesha ay ku qaban kari waayeen dood inaan leedahay inuu miskiin tahay ardo waa masabid ardo war dood jirida ku taagan baan ugu jirida inta taa ku qaban kari waayeen sanadii 12 bilood oo hore kuma qaban karayaan daawadayaal waxaynu intaasi kusoo gabagabayn doonaa doodeenaasi u dhaxaysay afayeenada xisbiyada kulmiye iyo wadani oo kala matalaya xisbiga xukuumadda ee dowladda iyo xisbiga mucaaradka ee wadani waxaanu ka cudur daaranaynaa inaanu casuunay xisbiga mucaaradka cid balse ay arintaasi ka cudur daarteen in doodaasi ay ka qayb galaan doodeena ayaa waxa ay ku qotantay 3 sanadood ee ugu dambeeyay ee xukuumadda madaxweyne biixi ay xilka haysay maxaa u qabsoomay maxaa la taaban karo meesha yaala ma jiraan maxaan qabsoomin halkay dhaliishu ka jirtaa maxaa bulshada Soomaaliland ku noqday maxaanse ku noqonin in la isxisaabiyo xisbiyada qaranka oo ay bulshadu aragto waxay qabsadeen iyo waxaanay qabsan waa mas'uuliyad saaran ummadda Soomaaliland oo ay codkooda ku doortaan xukuumadooda ay doonayaan si taasi ay dadku u arkaan wixii qabsoomay ayay miiska u nimid barnaamijkan waxay idin la socodsiinayay MMTV waxaan mahad gaar ah u naqayaa afayeenka xisbiga xukuumadda ee kulmiye cabdinaasir buuni iyo afayeenka xisbiga wadani barkha jaamac batun oo labadooda mahadnaq gaara aan siinayo iyo sidoo kale howlwadeenada dooda igala shaqeeyay ee ah Sakariye iyo Maxamed Mawlid iyo bahda kale ee farsamada ee MMTV waxaynu iskugu iman doonaa doodo kale oo la xiriira arintani oo la xiriira qodobada muhiimka ee dimuqraadiyadda qabaa'ilka ee doorashooyinka iyo nolosha dhaqan-dhaqaale ee ka dhex jirta Soomaaliland oo aynu sii wadi doonaa doodaheena iyo masraxyada aynu iskugu imananay ee barnaamijyadan la xiriira aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Maxamed Cabdiliga tan iyo kulanti dambe haddii Allah awood yiraahdo waa MMTV oo dhammaan
muuqaal technology waa hoyga elektrooniga iyo guud ahaan teknolojiyadda waxa ku dhan oo aad ka helaysaa qaybaha kala duwan ee kombiyuutarada sida laptoobyada moobilada tiifiyada kamaradaha nabadgelyada ee loo yaqaan CCTV iyo qaybaha kala duwan ee elektrooniga oo tayo leh dhammaantood waxaad ugu soo hagaagaysaa muuqaal technology oo kaaga keentay suuqyada caalamka muuqaal technology waxay leedahay laba qaybood oo muhiim ah oo ku yaala bartamaha suuqa Hargeysa midda koowaad waxay ku taalaa galbeedka masaajidka Calimataan fooqa sarifka xarunta labaad ee cusub ee muuqaal technology waxay ku taalaa dhismaha Durdur Mall jidka loo maro masaajidka Rashiid oo ah jidka wadnaha amaba suuqa dhexe ee bartamaha Hargeysa wixii faahfaahin inta sideena kala xiriir telefoonada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda muuqaal